Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan wacan wanaagsan daawadayaal idilkiin waa meel walba aad joogtaan iyo si walba inoo maqlaysaan. Waxaad kusoo dhawaataan muuqaal aan kaga hadli doono horyaalka Soomaaliya Premier League oo dib loo ambaqaadi doono. Muddo dheer kadib horyaalka Soomaaliya Premier League ayaa dib loo ambaqaadi doona kadib caabuqii coronavirus wuxuuna hakad ku jiray 2 bilood iyo bar ayuu hakad ku jiray horyaalka Soomaaliya Premier League sanadkana waa sanad aad u xiiso badan. Haddaba haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe inoo saar, like inoo saar, waxaan nagu dhiirigelin marka commentigaada iyo aragtida ka qabta horyaalka Soomaaliya Premier League. Sanadkan horyaalka Soomaaliya Premier League waa mid aad u xiiso badan marka loo eego sanadihii ugu dambeeyay maadaama ay ku tartameen dhowr kooxood oo waaweyn kuwaas oo loo fili karo midkood inuu ku guuleysto. Muddo 2 bilood iyo bar ayuu ku jiray hakad sabab la xiriirta caabuqa COVID-19 kaas oo dunida saameyn ballaaran ku sameeyay. Haddii aan dib idiin xasuusiyo kulanka ugu dambeeyay horyaalka Soomaaliya Premier League laga dheelo ka hor caabuqa coronavirus waxaa wada ciyaaray kooxaha Jazeera Sport Club iyo Midnimo Football Club. ciyaarta soo dhacday 18 bishii Maarch sanadda aan ku guda jirno 2020. kulankaas ayaa xilligaas kusoo dhamaaday 2 gool iyo 1 gool ay ku adkaatay naadiga Midnimo. Haddaba kulanka galabta Horseed iyo Racing ayaa lagu furi doona labada kooxood. Kulankan hore ayuu baaq u ahaa balse galabta ayaa lagu wadaa inay wada ciyaaraan. Kooxaha Horseed iyo Racing ayaa galabta wada dheeli doona kulan hore loo calaamadeeyay inuu dhaco balse caabuqa COVID-19 baajiye ayay dheeli doonaan, taasoo ka dhigan in dib loo ambaqaadi doono hardankii loogu jiro horyaalka Soomaaliya Premier League. Hogaamiyaasha horyaalka Premier League Horseed ayaa sanadkan ku jira bandhig ugu fiicnaa abid marka loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyay kooxda maadaama ay hogaanka hayso iyadoo leh 22 dhibcood kaliya 1 dhibcood ayayna hogaanka horyaalka Soomaaliya Premier League ku haysaa. Naadiga Racing ayaa ku jirta booska 7aad ee kala sareynta horyaalka Soomaaliya Premier League iyadoo leh 14 dhibcood. Labadan kooxood kulanka ugu dambeeyay wajiga hore horyaalka isku arkaan 4-2 waxaa kusoo adkaatay naadiga Horseed ciyaar dhacay 13 bishii koowaad sanadda aan ku guda jirno 2020. Horseed kulan galabta waxaa dhaawac ugu maqnaa doona xidigeeda Xasan Cabdinuur Geesi Xasaasi kaasoo dhaawac seedka ah lugta midig ku seegi doona. Horseed waxaa macquul ah in qadka dhexe ay ciyaarsiiso xidigaha kale ah Ibrahim Rasto oo kabtanka Cabdikariim Cabdulla Quwaay Xaniyare maadaama ay ka maqan yahay Xasaasi. Racing kulanka galabta ama kulanka ugu dambeeyay ka dhashay horyaalka waxay 4-2 ugu soo adkaatay naadiga Rajo Football Club. Kooxda Horseedna ciyaartii ugu dambeysana waxa ay barbara eber la soo gashay naadiga Cottoman Muqdisho City Club ex Brother Sport Club. Wiilasha Racing kulan ciyaareedka galabta waxaa ka maqnaa doona xidigaha kale Papa oo qadka dhexe ugu dheela kaas oo jaalooyin u aruuray ayuuna ciyaartan ku seegi doona, halka sidoo kale xidiga weerarka ugu dheela Mohamed Kelian oo Roose ugu maqnaa doona ciyaartan 9 saac ayay soo gali doontaa. Haddaba xogta ka qarsoon ayaana kuu soo gudbi doonaa maadaama caabuqa COVID-19 oo weli jiro. Waxaa jira horyaalka Soomaaliya Premier League in galabta la ciyaari doono wax taageero ama taageer la'aan ayaa la ciyaari doonaa. Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa sheegay in garoonka loo ogolaan doono inay yimaadaan wax taageero ah, taasoo ka dhigan in weli ay jirto cabsida laga qabo caabuqa COVID-19. Labadan kooxood ayaa ku dheeli doona garoon maran oo aysan joogin wax taageero ah iyagoo wey doona shacabkii ay ka heli jireen taageerayaashooda ay ku goobaabin jireen in kooxda hesho guul. kaliya ma ahan in horyaalka Soomaaliya Premier League laga joojiyay taageerayaasha inay yimaadaan garoomada. Waxaa horey u jiray in ciyaaraha caalamka intooda badan ba garoomada la ogoleen in taageerayaasha ay yimaadaan maadaama weli laga cabsi qabo caabuqa COVID-19. Warar soo baxay ayaa sheegay in warbaahinta maxalliga ah loo ogol yahay in horyaalka si toos ah u tibiyaan oo taasoo fursad u ah in ay taageerayaasha iyagoo guryahooda jooga ay ciyaartan daawan doonaan. Garoonka Engineer Iriso Stadium galabta wuxuu martigeli doonaa kulan aan taageero joogin. Haddaba haddii aad channelkan ku cusub tahay subscribe noo saar, aragtida ka dhiib horyaalka Soomaaliya Premier League sanadkani kooxda ayaa aad u rajeynaysaa. Mahadsanidin daawashada muuqaalka.